aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaal idinkuna sidoo kaleeto waad mahadsan tihiin intii sii sheergaraysay iyo intiina haddana daawanaysaba marka ugu horeysa saaxiibkii axmed hegan aan ka codsado wararkii ugu dambeeyey guud ahaan geeska africa isagoo laga bilaabahaya wixii ugu dambeeyey ogaadeyna ku jiray iyo guud ahaan etoobiya haddana ku xijisiinhaya waxyaabaha kaleeto ee dhacdooyinka kaleeto ee geeska africa ka jira si khaasa markaas waxaan u gudageli doonaa barnaamijka jubbooyinka kusoo dhawow saaxiibkii axmed hegan waad mahadsan tahay axmed cabdullaahi cawke saaxiib adaa maqlaya codkaygu fasaxmaya codkaaga si fiican ayaa lagu maqlaa waad mahadsan tahay guud ahaan gobolka ogaadeen hadda waa xaalad nabadgelyo iskaga jira isbedel baa ka dhacay isbedelka markii laga tago maamulkii deegaanka ka talinayay madaxtooyadiisu jigjiga ahayd muddo bil aba ma jooga deegaanka waxaad la socotaa in hadda wasiirkii madaxtooyada xasan daadhi lagu sii magacaabo kusiisimaha madaxweynaha wasiirkana ah raggii kale oo dhan waxay ku maqan yihiin naazireed iyo adhamiya xaggaasu tababaro ga socdaa waxaa lasoo barayaa xisbigan b iyo madhamar iyo etoobiyadan cusub wixii shalay laga tegey ah dib la isugu carbinayo in lasoo baro bilba halkaasay ku xaraysan yihiin oo sida ardaydiiba casharo loo dhigaa nimankaasi xaggaasay ku maqan yihiin oo maamulka ninkaas iyo wax kasii hooseeya unba hadda deegaanka jooga xagga maamulka deegaanku waa saas xagga ururkii onalef iyo jamhaddii ayagu hawshooda maalmeedkanba iska wataan waxaynu arkaynay maalmo dhaweyto golaha dhexe shirar yeesheen shirarkaasoo guddiya lagu magacaabay lagu howl qaybsaday qaar ay maanta gobolka nogob gobolka erar aan dhehe ay safarra usii ahaayeen xaaladda guud deegaanku waa iska saar jawi fiican baa la iskaga jiraa bulshadu colaadii iyo dhibkii iyo xukunkii cangagahaya wixii way kasoo yararaysatay nin walba hawshiisii nolol maalmeedkaabu iskala daalaa dhacaya intaasaan kusoo koobaya xagga deegaankeenna dhankan kale intaadan ka bixin axmed hegan dareen ah dadka waxay isweydiinayaan markay nimankani gobolka ay joogeen jigjiga ay joogeen waxaad moodaysay dadku inay buuq fara badaan u jiray inay dadka xasradda wadaan ayaga qoladan ay yihiin soo looma fasiri karo horta xaqiiqatan markii saa la dhaho waa run deegaanku markay ayagu joogeen dagaalaha ka socday qabiilaha laysu haystay jamhaddu intaa way ordayso guddiyey saaraysay kolba gobol hebel baa dad lasoo kala saarayaabaa lalahaa social media wuu kacsanaa waa lays wada xagxaganayay qaylo unbaa socotay nimankan saddexdii wiigee loo qaaday naazireed iyo adhamiya xaggaas wixii wuu kala degay wax facebook isxagxagan oo qayligayo ma arkaysid life laga dhawaaqayo ma aragtid reera is haysto oo lagu kala dhex jiro oo dad baa ku kala dhintay laleeyahay ma arkaysid marka waxay ka dhigan tahay meesha waxanba laga soo manaanadayay shaqaybsiga habeenkii laga soo samaynayay bayna madaxtooyada ahayd raggii samaynaya mas-uuliyiinta waaweyn ahana ay ayagu ardaynimo u xaraysan yihiin taa waa xaqiiqo wax la tuhmayo dadkao dhan ay fikirkaas ay wada qabaan taa intaasan kaga gudbaya fikirka waa kula qabaa arrintan etoobiyada kale laba weegba waxay nooc yara dhoola tus ah oo ciidamadoodii awoodoodii hubkoodii cududoodii ay soo bandhigayaan qoladii TPLF bay ku jiraa gobolkaas kilalka Tigreegu oo la yaab leh dhufays la qoto ciidan la soo bandhigo gaadiid la istuso bannaan la isugu yimaado shacabkii oo dhan oo la wada hubeeyey inahaasay ku jiraan waxaad moodaa inay cududooda soo bandhigayaan soo maraamada giigala u dhigan tahay taa markii Tigreega laga gudbo maanta axmaaro iyo oromo meel deegaankii xadka ka leeyihiin dagaalada ka socday oo labada qowmiyadood isku laynayaan Ethiopia markii la dhaho wax ka nabad qabo oo maanta dagaal ka dhex soconin Soomaalida mooyeen deegaamadii kale oo dhan way yara holciyaan waxaad moodaa un erig karkarayo inuu abiya daboolka ku yar celcelinayo ma ogi doorasho hadday sidan ku timaadana waxay noqon doonto Ethiopia intaas baan kaga gudbaya haddaan su'aal iga weydiinaynin dhankan iyo Soomaaliya baan rabaa inaan u gudbo waxaad la socotaa Soomaaliya in maalmo dhaweyto ay xasarad ka aloosantay gobolkan Gado in dawladda Soomaaliya un hal maruun iyo maalin iyo habeen lagu waabarisay iyadoo diyaarado carrada ka badan oo ciidan daldalayo oo luq ka dejinayo oo luq ciidan markii la dejiyo ayagoon baabuur wadanin hub iyo dhabarka wax ku wato unoo yaacayo oo afandari uuna magaalooyinka soo galayeen
oo doolow aan lagula dagaalamin beled xaawo aan lagula dagaalamin loo baneeyey oo arrintaasi waxay dhalisay yaab sababtuna waxay timid markuu wasiirkii amniga ee muddo 5 bilood ku xidhnaa magaalada muqdisho uu soo baxsaday ay ogaadeen inuu ka baxsaday gacantooda inuu ka baxay bay ciidamadan daabul waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay u arkeen inuu farmaajo u arkay mir hadduu ninkaasi ka baxsaday gedana uu tago inay isku daygiisii ahaa inuu Jubbaland gobolka geda uu noqdo meel lagaga duulo Jubbaland oo laga burburiyo ay faraha ka baxaysa ninkana uu kula dagaalami doono marka ka gaarsiin degmooyinka oo la haysto isagoo dhex tagaday wuu isku dayay ciidan buu ururiyay baawur buu ku dajiyay meeshii uu geeyay ninkiina isaguna muuna istaagina Kismaayo habeenku ka aroortu galay habeenkii uu ka sii duulay Nairobi buu tagay Nairobina wuxuu uga sii gudbay meeshii la oran jiray jawhar waxaan ka wada aamin beled xaawo markuu tagay isagana ciidankiisii intii meelaha joogtay buu urursaday ciidamo kale oo ka baxay Kismaayo iyo Doobley iyo ciidan awood lahoon ciidankii meesha yimid kuwa dhadhow buu isku ururiyay markay taasi dhacday maalin kadib waxaynu arkaynay madaxweyne ku-xigeenka isaguna isla goobtii tagay xafurinta tagay oo xoojiyay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland aan idhaahdee labadaas markay isugu tageen xaaladana qorigii uu wali afka ka bixin waxaa soo dhaxgalay ugaaska Mareexaan iyo odayaal oo ka codsaday intay u yeedheen oo sawirradooda arkaynay inay arrintan lagu xalliyo si nabadgelyo inay dawladdu ciidamadeeda kala noqoto ayadoon xabad qarxin noo kaadiya waqtina siiya arrintii wali ma dhicin ciidankii wali xabad ma qarxin dhibaatadii wali way jirtaa maanta waxaa la sheegay wararku nagu soo gaarayaan ilaa 30 askari oo nin taliya oo la dhaho canjeer magacaabag la dhaho uu kala la goostay uu la galay daraawiishta Jubbaland uu la galay oo aan u fahmay inay taliyayaashii markii horeba intuu ninkan xidhnaa la duufsado inay yihiin iyo technique iyo ciidan soddona inuu la goosto meeshii la galay kuwii kale ay markii ay ciidamada u tageen ay iyaguna baaq soo direen ay leeyihiin inta kale beled xawo ku hadhay waa inay hubka dhigaan oo si nabadgelyo ay uga baxaan kuwiina ay ku gacan saareen inay hubka dhigaan ay dhahaan haddii hubka dhigi waayaan waan soo weeraraynaa xaalad adag ba halka ka jirta waxaa inta dheer oo la socotaa inuu shalay tagay safiirka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo taliyaha commanderka Africom wax la dhaho oo hadda saldhigeedu yahay Lamu oo Kenya ku taala oo Africa oo dhan ciidamada Mareykanka meesha looga taliya ninkaasi wuxuu sheegay maanta war saxaafadeed soo saaray inuu la kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo madaxweynaha Puntland Dini iyo ay ka wada hadleen sidii argagixisada loola dagaalami lahaa sidii la isaga kaashan lahaa dawladda federaalkana wuxuu baaq u gudbiyay inay iyaga iyo maamul goboleedyada khilaafka ka dhaxeeya ay xaliyaan si wada jira loola dagaalamo argagixisada halkaas waxay ku tusaysaa isku dayga dawladda federaalka ahayd inay maamulada burburiso oo ay waxba kama jiraan ka soo qaaday inuu ka baxay laakiin ay ku dadaalayso farmaajo ka go'an tahay soo 4 sano dambe dib ugu soo noqdo inay inta aan la gaarin soo xulidda xildhibaanada inuu nimankan awoodda leh saameynta leh oo meesha ka saaro oo dad gacan ku rimisa keensado waxyaabaha soo far badan baa jira ku soo dhawow adiga fikirkaaga aragti